haddii aad maqli jirtay gabar yar oo Soomaali ah oo nin ajaaniba soo guursatay tani waa maamada ah oo caruur u joogaan isla markaana soo guursatay nin Jamaican ah oo kamid ah sida la sheegay dadka daroogada iibiyo waxaan ku hayaa muuqaalkeeda oo dhameystiran laakiin marka hore muuqaalkan Lexar oo si share gareys oo meel dheer u gaaro aragtidaada iyo sidii kula tahay nala wadaag hooyadan Soomaaliyeed ee da'da ah waxay soo guursatay wiilka muuqaalkan ka muuqdo ee dhalinyarada ah oo la sheegay inuu kamid yahay dadka daraagiska isticmaala isla markaana ka ganacsado hooyadan ilmo ayaa u joogo biri ka maalin waxay rabtaa inay inaga inoogu sheekayso ninka ay guriga keensatay in uu ka farxumeeyay ama dhibaato uu u geystay caruurta ay iyada dhashay way dhacday dhacdooyin noocan oo kala gabdho Soomaaliyeed ayaa waxay soo guursadeen rag ka ganacsada daroogada ama isticmaalo isla markaana waxay inoo sheegeen markii dambe ama social media-haba ay la soo fariisteen caruurtoodii in ay farxumeeyeen ama ay qaladaad ku sameeyeen raggii ay keensadeen maamadan hadday gabar yar tahay maxay ka dhibi lahayd waa qof da' oo waayeel ah oo waxay soo dhali rabtay soo dhashay waxay soo sameeyay rabtay soo sameysay maanta oo 40 jir tahay waxay soo guursatay guurna laguma tilmaami kare ee guriga keensatay wiilkan ay u jeedaan ee madowga ee Afrikaanka ee foosha xun ee waliba daroogistaha ah ee la sheegay in uu daroogada ka ganacsado gabadhan nin Soomaaliya oo jareer ah hadii soo guursan lahayd maanta qayla ayaa afka la furan lahaa dadka qaarkiina waxay dhihi lahaayeen gabadhan saa u quruxda badan waxay guursatay nin jareer ah maadaama ninkan uu Soomaali yahay Soomaalinimada iyo jareernimada ayaa lagu colaadin lahaa laakiin maanta waxay soo guursatay nin aanan muslim ahayn oo jareer ah guurna laguma tilmaami kare guriga ayay keensatay laakiin dadka qaarkood way u sacabtumayaan oo waxay leeyihiin waa xorooday waxay u arkaan xornimada in nin ajaanib ah oo aanan diin iyo dhaqan iyo wax uu heystaba aan lahayn in wadada laga soo wato guriga la keensado taa iyo xornimo iyo horumarba u arkaan hooyadan Soomaaliyeed maadaama ay tahay hooyo Soomaaliyeed oo caruur u joogaan waxaan kula talin lahaa marka ninkan ma shaqeeyo daraagiskaas uu gadgadaa meelaha ayuu joogaa iyada ayaa biili doonto maxay ku biili doontaa marka maamooyinka Soomaalida waa naqaanaa ma shaqeeyaan waxay ku biili doontaa lacagaha ceerta ee dawladda ay ka qaadato lacagaha dawladda ay ka qaadato ay ninkan ku biili doontaa sababtoo ah nin jareer ah kuma shaqeynayo adoo da'daas joogo kuma shaqeynayo waan ognahay ragga ajaanibta ee Soomaalida guursada inta badanba ma shaqeeyaan oo gabdhaha Soomaalida iyaga biilo maadaama gabdhaha yaryar iyaga ay shaqeystaan marka maamadan ay tahay qof weyn lacagta ay dawladda ka soo qaadato ay ninkan ku biili doontaa birina waxaan arki doonaa iyada oo dacwo ka ah oo dhahayso ilmaheegii ayuu foolxumo ku sameeyay ama farxumeeyay ugu dambeyn haddii aad halkan soo gaartay mar kale muuqaalkan Lexar oo si share garee si uu meel dheer u gaaro sababtoo ah waxaa rabnaa gabdhaheena in ay iska ilaaliyaan dhacdooyinka noocan oo kala iyo waxyaabahan oo kaleba in ay sameeynin